waxyaabaha in la qurux badnayn baa arkay garanaysaa yaan ku arkay dadkeenna ku arkay dadkeen waayo waa dadkeenna Soomaaliyeed daba dadkeenna hadda inaga mas'uuliyad baa inaga saaran si dalkeenu mas'uuliyad inooga saaran yahay qof kasto Soomaali ah mas'uul baa ka saaran guud waxa soo muxuu yahay waa diinta waa anshaxa waa dhaqanka wax kasta waa inaga wada dhaxeeya ma garateen wuxuu ku dhahayaa ballan iga qaad inaad waxan sheer gareynaysid buu ku dhahayaa koow inaad ballan iga qaad buu leeyahay wuxuu ku leeyahay haddii aad waxan sheer garayso 24 saac gudahooda waxaad helaysaa waxaas iyo waxaas bad helaysaa buu ku leeyahay waxa kale oo jira hore hadda Ramadaan baa lagu jira Soomaa dad heesa isku soo duubi jiray TikTok-ga hadda laakiin bilaabay aayado Quraan inay isku soo duubaan ayagoo afka dhaadhacanayo adigoo aad islahayn macnaha ajir iyo xasanaad oo niyadaada ku raadsaad islahayn inkastoo Ilaahay qulubtu daalacdaa laakiin macnaheedu ay tahay inaad like badan iyo views badan aad hesho taa oo kaliya haddaad nabiga jeceshahay buu ku leeyahay like isaar waxa kale oo jira dad macnaha ayagu dhalinyaro iska oo aan diinta waxba akhrisanin ama cilmi aan lahayn kadibna wuxuu damcayaa in uu raaco tabliiq inuu raaco damcayaa oo wuxuu ku leeyahay daaci baa noqonayaa diin baa faafinaya kadibna de waxba ma la baranin oo cilmi lama haysid waxa diinta aad dadka aad soo baraysid ee daacida aad ku noqonaysid maxay tahay koow qofku waxa la rabaa inuu asagu wax barto oo asagu wax isbaro kadib markuu asagu isku filaado in uu markaa bixi karo oo dar Ilaahay uu bixi karo oo uu aamini karo in uu gaalo soo islaamiyo in uu magaranaysa dadka meelaha diintu ay ku yartahay uu tago in meelaha mafashiyada ee lagu qayilay dhibaatada ka jirta kalaabiyada lagu tunta uu galo oo macnaha dadka uu ka wacdiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكو الله بشا وعن وناكسن وحن كعصن هيا حدي عد داونيسو فضلا إن عد ماشن عد داونيسد عد إيكال كعصو رمضان بلو جراي موقته مركا وحن أركي وحيابا أنا لا يابا وحيابا أنا لا قروح بدنين با أركي مقرنيسا يان كو أركي دادكينا كو أركي دادكين واي ودادكين الصوماليات أوكي haddaba dadkeena hadda inaga mas'uuliyad baa inaga saaran si dalkeenu mas'uuliyad inooga saaran yahay sida inaga dadkeena macnaha eelkaaga iyo qaraabada ay mas'uul kaga saaran yihiin qof kasto Soomaali ah mas'uul baa ka saaran guud wax guud baa jira moogtahay marka wax guud oo dadka wada dhaxaya jira waxa soo muxuu yahay waa diinta waa anshaxa waa dhaqanka wax kasta waa inaga wada dhaxaya ma garateen marka anigu waxaan arkay waxyaabo aan la toosnayn oo aan la qurux badnaan oo yara ila foolxun waxyaabahaas maxay yihiin waa in taxaya macnaha waa qodobo badan كو واحد أركي سا قف نهاية در إلهي واحد يقول شيء در إلهي معها سوري واحد قف نهاية بلان إجا قاد إن عاد واحد شهر جرينيس بقول نهاية كو إن عاد بلان إجا قاد بقوليه لا بقوليه هاي حدي عاد واحد شهر جرايسو لواتن إيه أفر تسع جذوه هذا واحد هريسا وحاس إيه وحاس بهريسا بقوليه واحد كلو شراء أول هو هذا رمضان بلو جرا Soomaa dad heesa isku soo duubi jiray TikTok-ga hadda laakiin bilaabay in ay heesa isku soo duubaan aan dhahay aayado Quraan inay isku soo duubaan ayagoo afka dhaadhacanaya taasna wax wanaagsan maaha wax fiican maaha adigoo afka dhaadhacanaya inaad aayad Quraan isku soo duubto adigoo aad islahayn macnaha ajir iyo xasanaad oo niyadaada ku raadsaad islahayn inkastoo Ilaahay qulubtu daalacdaa laakiin macnaheedu ay tahay inaad like badan iyo views badan aad hesho taa oo kaliya inaad afka dhaadhacayso aayad Quraan soo saarto wax wanaagsan maaha waxaad arkaysaa qofku dhahaya aw dadkii nabiga jeclaa like isaara dadkii nabiga jeclaa dad nabiga jeceshay buu ku leeyahay like isaar buu ku leeyahay waxa kale oo jira dad macnaha ayagu dhalinyaro iska oo aan diinta waxba akhrisanin ama cilmi aan lahayn kadibna wuxuu damcayaa in uu raaco tabliiq inuu raaco damcayaa oo wuxuu ku leeyahay daaci baa noqonayaa diin baa faafinaya kadibna de waxba ma la baranin oo cilmi lama haysid waxa diinta aad dadka aad soo baraysid ee daacida aad ku noqonaysid maxay tahay koow qofku waxa la rabaa inuu asagu wax barto oo asagu wax isbaro kadib markuu asagu isku filaado in uu markaa bixi karo oo dar Ilaahay uu bixi karo oo uu aamini karo in uu gaalo soo islaamiyo in uu magaranaysa dadka meelaha diintu ay ku yartahay uu tago in meelaha mafashiyada ee lagu qayilay dhibaatada ka jirta kalaabiyada lagu tunta uu galo oo macnaha dadka uu ka wacdiyo sidaas ayaa wanaagsan laakiin qof dhalinyaro oo asaga caam ah oo waxba garanayna hadii uu khamiis iyo cimaamad intuu ku xidho ku dhaho uu ku soo agistaago oo kadibna waxa uu sheegay aad fahmi weydo aayad Quraan ma daliilinayo حديث مش شيء من هدوش شيء ما دليلين كرام مش معناه مش شيء كرو أستقل في كيس علم ما لها وحلا جاي إنه كانوا يسكت يسكت شيء حيرين يهي طلنا يرضى مركب وحنا لها ووعي في عن ومعنا
hadal macquul gal ah bay ila noqotay inaan macnaha kala hadlo qofkii macnaha daawanaya dhalinyarada waa muhiim bay ku tahay fadlan waxyaabahaas ka digtoonooba ku dheeraha koob aan u soo laabano dadka dhahaya haddii aad share garayso waxaad helaysaa 24 saac gudahooda horta qofkaas waxa dhici karta inuu dambi galayo oo macnaha dhibaato ay ugu sawan tahay sababtoo ah isagu ilaahay kamuunay maanin oo waxa dhici doona isagu ma garanhayo oo sababtahay wuxuu ku leeyahay 24 saac gudahooda ayaad waxaas helaysaa buu ku leeyahay suuqoogaada in helay masaga ilaahay ka maad wuxuu ku leeyahay hadda nabiga jeceshahay like isaar buu ku leeyahay hadda maxaa ballan iga qaad buu ku leeyahay inaad waxaas ii sameynaysid buu ku leeyahay dadka horta waxa sameeyo horta hal qof ma aha laba qofna ma aha tusaale oo kale waxaad samaysaa youtuberadu markay video soo dhigaan ama asad xaajiyo dho ama darsla cabdillah commentiga waxaad ku arkaysaa dad waxaas sheegaya u badan u fiirsaya TikTok hataa fiidiyaasha la soo dhigo hal mar daawo commentigooda wax ku qoran waxaan isir macna dadka waxaan ugu badan ma dad ay daacad ka tahay oo ku raadinaya inay like iyo views badan helaan ba mise waa dad iimaankoodii iyo macnaha waxa ay wataan macnaha diinta aaminsan ba sidaas ah war sidaas diin ma aha sidaas waxba lagu ma helo bal haddii aad waxa adigu aaminsan tahay waxyaabahaas khiyaaliga aad aaminsan tahay waad habowsan tahay ilaahay ku soo hanuuniyaan kulaanahay ramadaan baa lagu jira ducada iyadoo waa aqbal kala ramadaan kariim baan ilaahay ramadaan tida kale ilaahay khayr barwaaqo bashbash ilaahay uu gaarsiiyo fiidiyowga nama rabo inuu si dheeraado tan iyo intaan kulmi doono macnaha fiidiyowga xiga waxaan ka tagayaa sida iyo amaan Allah waxyaabaha in la qurux badnaan baa arkay garanaysaa yaan ku arkay dadkeena waayo waa dadkeena Soomaaliyeed dadkeena hadda inaga mas'uuliyad baa inaga saaran si dalkeena mas'uuliyad inuu saaran yahay qof kasto Soomaali ah mas'uul baa ka saaran guud waxa soo muxuu yahay waa diinta waa anshaxa waa dhaqanka wax kasta waa inaga wada dhaxeeya garateen wuxuu ku dhahayaa ballan iga qaad inaad waxan sheer gareynaysid buu ku dhahayaa koow inaad ballan iga qaad buu leeyahay wuxuu ku leeyahay haddii aad waxan sheer garayso 24 saac gudahooda waxaad helaysaa waxaas iyo waxaas bad helaysaa buu ku leeyahay waxa kale oo jira hore hadda ramadaan baa lagu jira Soomaa dad heesa isku soo duubi jiray TikTok hadda laakiin bilaabay aayado quraan in isku soo duubaan ayagoo afka dhaadhacanayo adigoo aad islahayn macnaha ajir iyo xasanaad oo niyadaada ku raadsaad islahayn inkastoo ilaahay qulubtu dalacdaa laakiin macnaheedu ay tahay inaad like badan iyo views badan aad hesho taa oo kaliya haddaad nabiga jeceshahay buu ku leeyahay like isaar waxa kale oo jira dad macnaha ayagu dhalinyaro iska oo aan diinta waxba akhrisanin ama cilmi aan lahayn kadibna wuxuu damcayaa in uu raaco tabliiq inuu raaco damcayaa oo wuxuu ku leeyahay daaci baa noqonaya diin baa faafinaya kadibna waxba ma la baranin oo cilmi ma haysid waxa diinta aad dadka aad soo baraysid daacida aad ku noqonaysid maxay tahay koow qofku waxa la rabaa inuu asagu wax barto oo asagu wax isbaro kadib markuu asagu isku filaado in uu markaa bixi karo oo dar ilaahay uu bixi karo oo uu aamini karo in uu gaalo soo islaamiyo in uu magaranaysa dadka meelaha diintu ay ku yartahay uu tago in meelaha mafashiyada lagu qayilay dhibaatada ka jirta kalaabiyada lagu tunta uu galo oo macnaha dadka uu ka wacdiyo